إن حالة داسي أي هيد إن قريب وكشرو عمر وكشري أو مكلتوم يكشرتي إن قريب كراء وأها يعني بالكورما أمير المؤمنين وإله سبحانه وتعالى فتوحات كأي خير كاوسيي أي هذا الدمر كيس مت كم ذا أي قريب كراء أي جلسي ساس ما كتاكو جوابان مشروعية الإرشاد على الطلاق إن قلنا وحيد هو واجب قلنا وحيد هو مستحب ينقف بذلك ضفره ويعني طلقة وصية لما مرخاتي مشى أي جوجان عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه والصحابة ووينيد هايد أي وحاول شيء نبى حاسكي سفري طلاقي ذي إن مرخاتي ومشيجن مركي هذا رجعت ويلي عند مرخاتي ومشيجن فقال عمران طلقت بغير السنة وراجعت بغير السنة سيب بلا سنة بعد كفرتي سيب بلا سنة لوات كسوع عشدي أشهد على طلاقها وعلى رجعتها مرخاتي والشيء إن مركانا فرتي مركانا أتسوع لسي شافعنا قول كيسي قديم كها وعليه واجب إلا إشهادية أو مرخاتي يعني أي شوغان ألا يبخسها أي حق من حقوقها إن حق أي لاذ هاي وحقوق ذي كم إذا مت كم إذا إن أنا الظلم أمانه هاص وقدهن مهر كيدين ولما يستروا أي واجبة وحق أي لاذ هاي ويان نفقة ذي نصية هي واجبة ومتعوهن تبتنا سرحوهن سراحا جميلا باكو حكتي إن كذلك متعددة أي حق لاذ هاي والله صيو أولاد دي كرانا نفقة أولاد يذوب بتوجكتها وحبل قبل مايو nin Baghdad joogi jiray yani marka dulmiga waxa kamida in qofka in aqdiga lagu qoro hadhowda kala tagno ama waxa meher malihid iyo xuquuq malihid iyo muakhar malihid iyo wixii lamida nin Baghdad joogi jiray in adeertii Rumayo qabi jiray wuxuu marka u ballan qaaday inuu la guursan sidii isagoo qabay ay gabadhi qof dumar ugu timid dukaankiisii waxay ku tiri guurso wuxuu ku yiri walaal in adeertay baan qabaa wax marka in adeertay baan aan ku ballan ku galay inaan guursan marka hawsha ma gali karayo waxay ku tiri jimcihiiba wiigiiba maalinii kaalay oo waliba galin hore ii kaalay habi baan ku ahay sidaas uu ku guursaday 8 bilood markuu qabay ayaa in adeertii ayaa shakiday شاريدي bay dirto waxay tiri ninkan maalinta jimcaha subaxii meel buu ka lahaay ka dabagal way dabagal shay waxay dumarku waa cajiib weeyaan FBI iyo CIA iyo balaaya ka daba shaqeeya inta iska fadhiyaan telefoon ku hadlayaan waxa askarteeda daraysa inaad ku tukatay quba cishaa way ogtay iyadoo algeeba iyadoo soo hor joogtay ogtay inaad quba ku tukatay cishaa sheekh wuxuu akhriyo algeeba inay ogtahay dumarku waa caalam kale waa dunya kale waxaan internet kan iyo waxaan soo baxay waxaan way ka horeeyaan iyagu كدب بقى واحد عاي إن هذا بقى تري أرض هبلاي دبقل نين كلام يلبو تجاي أذو ويسوق جاتو شاكي بيوجيسوني كلام هو هايو قبل إنه العشرة يتقول سده يقدروا ساسي كوه جاتي هي كدبوني كده نكيل بعض دمر قبيبة دنتي مركي أو دنتي أيي قبل دي إن هذرتي لأن كده يدور دنتي هات المكان وحيستردي آخرين سيانو سيجن أيا وحكر دنتي سديت كون أو درهم سديت دي كنت ساوكتين بقى ثمنك سديد قيبات قيب waxa qaybsada dumarka la qabo ama hadii mid taaniyada qaadanaysa dalbiina wala kala qaybinaya todobadii kun bay caruurtii kala qaybsatay kunkiiba 500 oo kamida half ay u dhiibtay jaariyadii waxay ku tiri waxaad u geysaa gabadhii aad berigi soo ogaatay inuu ila qabay gabadhii markaa waxay ku tiri waxaad gabadhii ba markii 500 loo geeyay 500 baa u celisay waxay ku tiri warqadaasaan kala qoranay inaanan xoolaha sadaaqa dambe aanan waxba ka qaadanin marka talaftirkeedu de waa dulmi weeyaan qofka dumarka marka la furayo in xuquuqdeeda loo dhameystiro oo waliba waayo iyada mushkilad baa ku dhacday xaalad nafsiya baa ku dhacday ninkeedii oo de qabay oo intaas oo wada joogeen bay kala tageen li ay sabab cidii doonta sababta yeelato marka waxa waajib ah in yaani mashruuciyada in kadalika meherka la dhameystiro ayaa waajib ah taa waxa ku xigta alla yufshi sirraha la fi talaq wala ba'da inaanu sirteeda ka sheekaynin ama wax wasfeen ama arima ka sheekaynin ama dukhul daakhilkii iyo hurdadii iyo sariirtii aanu tagin ayaa kadalika waajib ah عايز ما ذكر ماذا يسفرنا يا شيك كذا محايد يسفرنا يا شيك كذا إنه محايد واحد ده وكلا أظن ما سافرتي وين يسفرنا ده مكان كلا صعنا محايد وحس شيك وكلا النبي عليه الصلاة والسلام حيله إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة أمانويك قوة وين الله سبحانه وتعالى كيس أمانة قيامة وحكم ذا الرجل يفضي لامرأته إنه نكون حاس كيس ده وتقام وقل الموضوع وتفضي إليه يدرس سدا سلك ثم ينشر سرها تبتلو كشيكي أرميدي حواشيري كذلك واجبه إن أنو كشيكين بسوء بعد الطلاق إن أنو كشيكين سيدنا يا هيديو كان يا هيديو وروين سفرنا ده خلاص باب كاسوح المي هاي إنه سدا كوكالا صعنه taasina waa arrin aad iyo aad u important waayo waxa inta labadii qof haday kala tageen
laga baan caruuri jirto caruurtaas in la ilaaliyo shucuurtooda waa mid talabaad labadoodii in adii kaarkooda la gubo oo la yiraahdo labadu waa sidan iyo sidan labadooda kaarkooda gubanaya iyadana kaarkeeda gubanayso in kala heli mayso isagana kaarkiisa waa gubanayo xaas kala heli maayo marka diinta islaamku markay isqabana shucuurtooda labada qof way ilaalinaysaa marka ay kala tagaana diinta islaamku shucuurtooda way ilaalinaysaa waxa jeceshaada jeer mujtamac isjecel inay wanaagooda jacaylkooda joogaan ama ay jacayl kadalika ay ku kala tagaan walidalika thabit ibn qais zawjadiisi waati iska saniftay aanay jeclaan inay la sii joogto tabeetana waati runtii ceeb kuma sheegin wanaagay sheegto waxay tiri la ceeb ninka waxa la leeyahay ceeba oo diintiisa akhlaaqdiisa wax ka sheegaya ma jirto laakiin waxaan ka baqanayaa inaan ka noqdo inaan gaalnimo ku noqdo bacda islaam bisabab deenikan jacaylkii dambe aan dib dambe ugu haynin oo magac xuquuqdiisa iyo wixii ka soo bixi kareyn marka iga fasax tabeetana waa kinabi ku yiri xadiqadiisa ma celinaysa ama beerti berigi ku siiyay haabay tiri xadiqadiisa isagu waa israacaan sidaas uu tabeetana xadiqadiisa ku qaaday nabigu wuxuu ku yiri xadiqada qaado wa talaqa tatliqa talqad kaliya fur marka taasay fuqahaagii culimadu khuluca ay daliil u arkaan imika waqtigan xaadirka Soomaalidu markay ku yimaadaan waxa weeye khuluca laga baa meel ka soo yaro maqasho bari dhaweey 3 sanadood ka horna Masar baa keentay sheekada ahwaal shakhsiyeedii baa khuluci lagu soo daray ama mumkin musalsal baa laga baa Ramadaantii daawatay ama wax kale sheekho khuluc baan doonaya ana ma dhow bala Soomaali hore adu ilaa sanad ka hor gabadh baa la soo hadashay sheekh khuluc inaad khalcisid baan doonaya maxaa lagu khuluc waa wax meel aan ma fahansaneyn moogta waayo waxaan moodeen wax musmaar meel la galiyo la soo khalciya la soo saara xagaan ka khalciya baan ku yiri ninkan doonaya inaad iga khalcisid marka waxaan isleeyahay wallahi faqihad baa kula soo hadashay khuluc ay sharax baan ku yiri wax Allah ay garanaysaa ma jirto khuluc waxa weeyaan in qofka bani aadamkii ee dumarkii ay markay ninkeeda ama odaygeeda la isfahmi waayo uu isagina diiday inuu furo inay nafteeda ibtidaa ay nafteeda iibsato waxay ku iibsanaysaana uu noqdo wuxuu siiyay oo qiimo leh khaatun deemana beer كذلك يعني wax weyn oo uu siiyay in ay la timaado kadib dabeetana uu isagina sida ku furo taasina waa taa rag badan baa mesela waxa lagu meheriyay xaaskiisa $10,000 $10,000 baa waxa laga yaabaa isagoo niyada u sheegay inay ku leedahay ayaa isaguna warqad qalin buu soo qaadanaya googarad iyo shalmadu iibiyaba uu ku qoraya £100 £50 hadii Dubai tigir loo goosto la israaco tigir baan xaga ugu gooyay waxaas taaliftirkeeda marka aad la fadhiyo la heshiisiinaya dadka ama ay dadka furitaanka ay timaado qulaatu burhaanaku marka la yiraahdo rag baa la yimaada nin baa $13,000 buu hameerkoodu $13,000 buu la yimid anaaba $3,000 ugu leeyahay gabadhay uu furaya ana $3,000 kula buu yiri maxaa yeelay berigi idina waxay qabsatay waa radii aad xitaa hadii aad oo nafaqada ay kugu leedahay waa mid ay kugu leedahay kaswada sayfka iyo kaswada shitada iyo nafaqadii caadiga ah daruurada taasi waa meesheedii hadaad wax kale oo ziyaada mesela baa 10 isku lahaydeen oo man intaad kun keenteed ku tiraahdo waa meherkii baan ka gooynaya xitaa oo la socoto waa xaalad weeyaan laakiin inaad wixii tilsatidood qofkii dumarka ay Israa'iil wallahi ninkana iska tago 10 kun naaqas ku yaalaan oo dawladda dabada dhigto taaliftirkeedu waa mushkilad illa iska ilaaliyo weeyaan alxaasil wanaag baa lagu wada joogay wanaag halaw kala amba baxo haday xaaladaasi watii ugu dambeysay dhacday qofka inta la furo ama qofka dumarka ee la furay waxaynu leenahay talaaqu nihaayatu aalam maaha waxa weeyaan la iska ilaaliyo inta la kari karayo weeyaan laakiin hadii uu talaaqaasi uu dhaco xayaadiya nolosha hortaaday taala yani marxaladii ugu dambeysay maaha dumar badan baa hadii la furo oo furitaankaasi sababtu tay doonto ha noqoto waxa dhici karaysa in xanuun ku dhacaan depression ay ku dhacaan oo markaa kiniina qaadato oo markaa khalaas ay doonto meeran ba weydo oo yani silic iyo dhibaato ay u sugnaato ama kadalika wadada uu dhinto kadalika ninku talaaqo ma wixii adduunyada ugu dambeeyay malaayiin mutalaqaat baa jira guur labaad guursaday oo caruur dambe dhalay malaayiin mutalaqaat baa jira nolol wanaagsan noolaaday daaciyada noqday diin faafiyay kutub islaam qoray khayr badan shaqaystay arintaas waa arrimaha aad iyo aad runtii u jirta waxa waajib ah in qofka bani aadamkii uu yani mar walba marxaladda uu ku jiro iyo nolosha uu ku jiro uu habbi ku ahaado uu taacad runtii kadalika uu la yimaado waqtigan xaadirka ah adaad runtii u fiirsato dhibaatada talaaq ee ummadda kala haysata dhibaato yar ma aha dhibaatada in badan ragga ka mas'uula in aynu sheegnay ku sheegnay dumarka ka mas'uula ragga waxa waajib ku ah walaalayaal in mas'uuliyadoodii la yimaadaan ay waaqici ilaahay subhanahu wa ta'ala waaqiciyay iyo qawaamadii ilaahay subhanahu wa ta'ala ragga siiyeen ragga qawaamadii ka soo baxaan weeyaan qawamada la ka soo baxdid weeyaan 7 saacadood 8 saacadood mafrashka fadhido waxa ku dhaanta adigoo carruuraaga masaajidada iyo malcaamadaha geeya adigoo reerkaaga shoppingka u doona adigoo reerkaaga khayr iyo wanaag kula noolaada ayaa ku dhaama taas runtii dhaanta
bahalkaasi waa bahal dhibaato inoo geystay waa bahal sidaan idinku sheegay boqolkiiba 70 jaadku mashaakilka talaaqa ee wadankan Ingiriiska ka jira anu hadaan 80 ba ahayn boqolkiiba 70 weeyaan bahalkaana aynu iska ilaalino sidaynu iska qaban lahayn falowgeeda aynu qabanno dadka khayr Allah siiyay u kacayna qabtaana runtii dadka u kacay baalka la mamnuuco hadii la mamnuuco ajar badan baa ugu jira waayo waxaan hubaa dad badan oo isfuri lahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku seef gareeyay bima inuu baalkaas ama geedkaas shaydaanka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaga qabta marka ragga waxaan leeyahay Ilaahay ka cabsada waqtigeena reerkeena iyo caruurteena siiya iyo ehliyadiina iyo faamilgeena inta kale cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku adkaada dumarka waxa la Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada raggeena iyo dumar iyo caruurihiina u fiicnaada gurigeena waqarna fi buyutikunna gurigeena jooga oo risaalada la idin diray in caruur soo saartaan korisaan weeyaan risaalada la idin soo diray inaad maca kulli naa'iq admeelkii qaaq meel kale ba inaad la taagnaataan ee xafladii meel walba ka taagan ba inaad safka ugu horeysa ahaataan idinko bahal digital oo $300 la soo siiyay xiran runtii maaha dumarkana taasaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa inuu inta xaasaska u barakeeyo arsaaq badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyo halkan saan idin sheegay badan oo single fadhida inta single ka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagana inuu guur khayr qabo u siiyo arsaaqad waasica Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyo runtii yaani nolosha guurka iyo nolosha guur la'aantu qof tijaabiyay baa garanaya laba nolol isu dhow maaha qofka bani'aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wariyada u hagaajiyo yaani wax weeye waa jannada adduunka weeyaan وقفات يعني كنا في سيسو يعني سوى البوجنا في سيسو أو صرت هذا كله إلى نيسا أو الرماه هي دباتون كدوك كله فلاقين نيسا أو حبنها جوردن كو أسطوريسا أو إلهي سبحانه وتعالى سيدو شيء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أيضا السنة قريسان يعني وحوي ردي وي كام مغناطي إيميل أدو فصح ذي أتجيسي أتجيسيد أي أدو حد إكسان كمار بكريم ولا ينحريست إلهي سبحانه وتعالى وقريه أدان وخالد كوه اللي حقيقي حق الشيطان كويان أدان حقيقي صح الشيئين فمن الله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأنا تكون مع سنتين سيدة ونكسن ولا الله إنما دي هبلها لمضبة أو قصة وقيب قشين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبتاه طالت غربتي من طول ليل الرحلة يا كأس حبي يا أبي عد لي الصغير بلهفتي عد لي الصغير بلهفتي عد يا أبي أنا لا أنام فأنت وسادتي عد يا أبي لتطوف أنسام الهوى في حجرتي عد يا أبي تاق الحنين لقبلة في وجنتي عد يا أبي واحمل إلي كما وعدت هديتي عد يا أبي فبدونك الدنيا قذى في مقلتي مزقت أيام الغياب لكي تعود بسرعتي وتضمني في حضنك الدافي فتذهب غربتي وأرى الحياة على ذراعك يا أبي كالبسمة وتمر أيامي وأنت بجانبي كالنسمة عد وارويني قصص البطولة كي تشوب بطولتي عد يا أبي فالكل يسأل عنك حتى جارتي عد يا أبي ستكون في استقبال طائفك مهجتي ستكون في استقبال طائفك مهجتي